dalka Britain ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka taagnaa dhibaato xagga shidaalka ah. Marka aad ag marayso kaalimaha shidaalka ayaad arkaysaa safaf dheer oo baabuurta ku jirto. Haddaba maxaa keenay in shidaalkii la waayo? Wararku waxay sheegeen in darawalladii baabuurta waaweyn ee shidaalka keenayay ay yaraadeen, qaarna shaqadii ay hakiyeen ayagoo ka cabanaya mishaar yari iyo daryeel la'aan. Waxaa intaasii dheer ay loo arkaya calaamada caddaynayo in ka bixitaanka Ingiriiska ee midowga oo loo yaqaano Brexit ayaa dhashay in shaqaalihii Yurub kale ee gaar ahaan Yurubta bari ay dib ugu laabteen dalkooda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Daahir Xaashi, taxi driver oo ku nool London. Dhibaatada batroolka ka jirtay maalmihii u dambeysay magaalada London waxay ahayd arrin aad iyo aad u xanuun badan oo kaliftay xitaa in aan shaqayn weyno baabuurta wadi weyno. Xitaa haddaad batrool hesho meesha aad mari lahayd waxaa faylal dheer loogu jiraa ama queue dheer loogu jiraa meelihii batroolka laga geli jiray. Wadooyinka dhan baa isku xirmay. Arrintaasina waxay saameyn ku yeelatay shaqadii, isku socodkii, noloshii oo dhan bay aad u saamaysay. waxayna noqotay wax qof kasta taabatay, qofkii gaari wada iyo qofkii aan gaari wadan, qofkii shaqeeya iyo qofkii aan shaqeyn way taabatay. iskuulaadkii la aadayay, jaamacadihii la aadayay, waxbarashadii oo dhan dhammaanteed, shaqadii, noloshii, wax walbay taabatay, adeegii meel walba ayay taabatay. aniga waxaan waday wiigii la soo dhaafay gaari diesel ah, waan iska bedelo, waan iska dhigay. maanta hadda waxaan wataa koronto ayaan soo qaatay, sababtoo ah korontadu xoogaa way dhaantaa hadda xilligan hadda la joogo. ayada lafteedu igu soo orod maahan oo waxeedu straight forward maaha ama wax meel walba iska yaalla maahan, laakiin waxaad moodaa inay dhaanto batroolka. naaftada ama naaftada ayaa roon oo helitaankeedu yaro dhaamaa, laakiin batrool ama unleaded waxa la yiraahdo wuxuu noqday aad wax u adag. dowladda Britain ayaa sheegtay in ilaa 100,000 shaqaale ah loo baahan yahay inay bixinayaan fiisooyin shaqo oo 3 bilood ah. Maxamed Roberto, TV-ga Caalam Universal, London.